جزاك الله خير شيخ سؤال كله waxay leedahay hilibka digaagta asagoo diyaarsan oo la soo qala la keeno oo la leeyahay kambaniya iskale ama warshadaha lagu soo sameeyay ma la cuni karaa maxaa lagu xaqiijin karaa inuu si xalaal u yahay ama xaraan yahay alxamdulilah masalada hilbaha digaag keliya ma ahane ama hilibku ari ha noqdo ama lo ha noqdo ama geel ha noqdo wax kasta oo gowrac u baahan ama digaag ha noqdo ama hilibka ugaadhaas kale ha noqdo wax kasta oo sharciga markii hilibkiisa la cunayo in gowrac xalaal oo saxa loo mariyo u baahan oo laakiin cid gowracday la aqoonin ma la cuni karaa haddii la yidhaahdo waxyaabo kala duwan bay ku xidhnaan haddii mujtamacu bulsho muslima ay tahay ama muslim keliya ayna ahaynee ahlu kitaab yihiin sida wax loo gowracee guud ee la yaqaana sidii saxnayd ay tahay hilib kasta waa la cuni karaa oodan ogaanin bakhti inuu yahay waxaa la raacinayaa xukumka guud xoolo la qalay oo kasta cid kastoo qashay lama ogaan karo ciddii aad arkayseed qashay haddaad halkaas sii dhaafta guud yaa qalay hebel baa qalay qofkaasaa qalay isaga laftiisa soo weydii dee ma muslim baa mise maaha diin muxuu rumaysay soo weydii isagana haddii la yidhahdo hilib kastoo la cunayo qofkii qalay ha la raadiyo mujtamacoo muslima ama si xalaala wax u qasho muslim iyo ahlu kitaaba waxay noqonaysaa wax adag haddii lays yidhaahda amayna bisinka qaban markay qalayeen waa tii nebiga la weydiiyey muslimiintu dad badan baa soo islaamay qaar baa iska reer baadiye ahaa aan axkaamta sharciga iyo diinta si fiican u aqoonin hilib baa loo keeni jiray reer madiina caaisha waxay ku tiri rasuulka ilaahay hilib baa naloo keenaa dadkii gowracayay inay bisin qabteen iyo in kalena kala garan mayno maxaan samaynaa wuxuu yidhi samullaha antum wakulu idinkoo bismillaahi dhaho cuna waxaa muslimiinta ka yimid inaad shaki wadagelisa maaha baabkan haddaan furno muslimku raashinka kale ay kuu keeneen horta ma xalaal buu ku soo galay mise si khaldan buu ku soo galay su-aasha isweydii qof baa gaari kugu qaaday gaarigan amuu ribo ku soo gatay oo gaari ribo aan fuulaa marka dambe waad isla hadli maskax ahaan waad khafiifi waad waswaasi sidaa lama rabo hadday waxa guud toosnaan tahay toosnaantaa lagu xambaari haddaynan sidaa ahayn oo waddanka sharci ka jira la yaqaano in si sax ah loo qala waddanka xeera ka jirana waa la cuni karaa waxaa saddexaadoo la cuni karaa haddii uu sida caadiga a tahay hay-ada inuu soo mara xaqiijiya oo muslimiinta ugu xil saaran xalaal inuu yahay shaabadda ku soo dhufta waa la cuni karaa wixii xalaan hadhow noqday iyaga alla ka weelay dembigeeda ciddii dadka u qarisay baa alla ka weelay dembigooda intaa haddaynan ahayn oo xoolo badan oo daadsan oo bakhti iyo xalaal isugu jira la kala garan waayo ama meeshanba si loo qashoo gaara aan la aqoon ama waddan gaala intuu ka yimid wax caddaynoo xalaala aynan jirinna lama cuni karo intaa adugu inaad iska hubsata marka kala ogaanshaheedu adigama ciddii mas-uulay u taal wabillahi towfiiq